subaxyo cadceed hadha amase cawo daran habeen usii subaxyo cadceed hadha amase cawo daran habeen ولين هردو هلو ذي دنكا ولين هردو هلو ذي دنكا سيدادكو هشانوا ولين هردو هلو ذي دنكا ولين هردو هلو ذي دنكا هداونا دبلا مالكا ولين هردو هلو ذي دنكا ولين هردو هلو ذي دنكا هداونا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeeni subax wanaagsan oo hadahan oo kale uga barateen mudigay maado raadiyo Hargeysa codka Jamhuuriyadda Soomaaliland. meel kasta oo codkaygu idiga soo gaarayo dhegeystayaal waxaan duleenahay subax wacan oo wanaagsan. qormooyinku aynu soo qaadanayno toddobaadka waxaa ka mid ah warbixin la xiriira faa'iidooyinka jimicsiga subaxnimo, xaqiiqda geerida mulxidkii weynaa iyo maalmihiisii ugu dambeysay nolosha iyo waxa uu ku dhawaaqayay, raashinka badan iyo dhibta uu jidhka u leeyahay, cajaa'ibaadka nolosha fidmeerta, xubintii gaarka ahayd barnaamijka, fariintii loo diray tuuggii iyo jawaabtii uu kaga jawaabay. waa qiso la xidhiidha haweeney laga xaday qalab ay haysatay oo ka caawin jiray shaqada iyo nolol maalmeedkeeda, noolaha iyo faa'iidooyinkiisa, warbixin la xidhiidha shirkadaha Jabaan iyo sida cajiibka ah ee ay ula dhaqmaan shaqaalahooda. meel kasta codkaygu diga soo gaaray waxaan dileenay subax wacan oo wanaagsan. halkan waa raadiyo Hargeysa codka Jamhuuriyadda Soomaaliland. dhegeystayaal haddaynu soo qaadano xubinta ugu horreysay barnaamijka, warbixintan waxaynu ku eegaynaa faa'iidooyinka jimicsiga subaxnimo. jimicsiga la sameeyo quraacda ka hor ayaa la caddeeyey inuu jidhka siiyo awood iyo firfircooni dheeraad ah, taasi oo suurtagelisa qofka inuu shaqada badan u adkaysto iyo inay ka ilaaliso daalka iyo warwarka jidhka ku dhaca wakhtiga shaqada. macad ku yaala dalka Ingiriiska oo cilmi baadhis ku sameeyey 30 qof oo jimicsi sameeya ka hor quraacda ayaa muujiyey in jidhkoodu uu gubay sonkortii iyo in uu welibana awood u yeeshay inay shaqeeyaan waqti badan iyagoo aan dareemin daal iyo caajis midnaba. waxa kale oo daraasadda ay ku samaysay baadhis dadka jimicsiga sameeya quraacda kadib, kuwaasi oo la ogaaday in miisaankoodu kordho isla markaana aan wax isbedel ah ku dhicin sonkorta jidhkooda. sanadkii 2017 daraasad laga sameeyey jaamacad ku taala dalkaasi Ingiriiska oo lagu magacaabo Bath University ayaa isla warbixintan soo saartay, waxaana daraasaddu dadka ku dhiirigelisay inay sameeyaan jimicsiga quraacda ka hor, taas oo faa'iido badan laga helayo. guushu waxay ku timaadaa fikir heel dheer iyo dadaal ku dhisan qorshe cad iyo dariiq sugan. waa in aynu la nimaadno adkaysi iyo dulqaad inta lagu guda jiro dariiqa dheer ee guusha lagu gaarayo. waa in la fahmo in ay iman karaan qaladaad iyo hakadyo, loo baahan yahay in si taxadir leh oo sabir iyo dulqaad leh looga gudbo. shimbirta yari markay dilaacdo waxay barataa duulimaadka iyadoo marna duusha marna soo dhacda. taasi waa barashada duulimaadka. ilmaha yarina marka uu istaagayo ama socodka baranayo waa kaaca kufa, waana barashada istaagga iyo socodka xooggan. dhibaatada iyo xanuunka noloshu waa barashada dariiqa guusha dhammayska tiran.
weli halka nagala socotaan waa raadiyo hargeysa codka jamhuuriyadda somalilan. maxay ahayd amabase halkay ku dambaysay iyo dhawaaqyadii kala duwanaa ee ka soo baxayay geeridii mulxidkii weynaa ee aaminsana mabda'a shuyuuciyadda? mulxidkii curiyey shuyuuciyadda karl markes waxa uu dhashay 5 bishii shanaad sanadkii 1818 dalka jarmalka. waxa uu ahaa faylasoof, ganacsade, suxufi iyo nin dareenka bulshada kiciya. waxa uu tegey magaalada london waxaanay isku barteen faylasoof kale oo jarmal ah oo lagu magacaabi jiray friedrich engels oo qoray sanadkii 1883 buug la magac baxay caddayntii shuuciyadda. waxa uu ka mid ahaa tafatirayaashii wargeeska Rehensstaufen oo jarmalka ka soo bixi jiray, kaasi oo hantigoosadka ku dhaliili jiray kuna faafin jiray ammaanta shuyuuciyadda. waxaana looga digay inuu qoraaladaasi joojiyo, iyadoo markii dambe wargeyskii la burburiyey markii laga cadhooday qoraaladiisa. karl marx waa aabbaha mabda'a shuyuuciyadda, waxaana uu aaminsanaa inay diintu bulshada kala qaybiso iyo in aan waxba la caabudin, waxaana uu caan ku ahaa mulxidnimada. ninkaasi aan diinta lahayn waxa yaab iyo mucjiso noqotay maalintii uu dhimanayey oo ahayd 14 bishii saddexaad sanadkii 1883. saacadihii sakaraadku uu hayey waxa uu la kulmay ardaydiis, iyagoo arkaya ayuu ku dhawaaqay xanuunkii hayey awgeed ereye ay ka mid yihiin ilaahayow ii gargaar. aad ayay ula yaabeen maadaama uu ahaa mid aan waxba rumaysnayn. markiisii hore muu rumayn allah subxaana watacaala, laakiin sakaraadkii ayuu ku ogaaday xaqiiqda dhabta ah iyo inuu alla dunida maamulo, qofkana naftu kama baxdo ilaa uu arko janno iyo cadaab halka uu gelayo. raashinka badan iyo dhibta uu jidhka u leeyahay. daraasad caafimaad oo dhowaan la sameeyey ayaa caddaysay in koloriska raashinka laga helo oo la yareeya ay kaalin weyn ka qaadato gabowga. daraasadan oo lagu sameeyey dad raashinka ay qaadan jireen iska yareeyey, waxaa lagu ogaaday in dadkaasi ay hoosu ka dhacday maadada loo yaqaano metabolic oo keenta gabowga. raashinyaridu cimriga ayay yaraysaa, waxaanay ka mid tahay xikmadaha ku baahay dunida sida daraasada lagu sheegay, waxaana arrintaasi sugay cilmiga kadib daraasado isdabajoog ah. cilmibaarista waxaa ka qayb galay 200 oo qof oo raashinka iska yareeyey muddo 2 sanno ah, waxaana caddaatay in heerka metabolika uu hoos u dhacay kadib markii uu miisaankoodu hoos u dhacay celcelis dhan 9 kiilo. waxa kale oo hoos u dhacday heerka oxidativeka ee xidhiidhka la leh cudurrada dhiigkarka, sonkorta iyo alzheimer iyo cudurro kale oo da'da iyo gabowga xidhiidh la leh. sidaa darteed cilmibaarista waxaa ka soo baxday natiijo ah in raashin koobani uu dhiirigeliyo unugyada mas-uulka ka ah howlaha koloriska, hormoonada iyo jiiniska, kuwaasi oo dhammaantood ka qayb qaatay in dib loo dhigo calaamadaha bayolojiga ah ee xidhiidhka la leh gabowga. shimbirta fidmeerta ayaa la sheegay inay leedahay calaamado iyo cajaa'ibaad ay kaga duwan tahay noolayaal badan, sida uu caddeeyey aqoon-yahanka cilmiga xayawaanka ah ee reer Canada Master Charles Frankes. shimbirka labka ah ee fidmeerta ku nool kaynta Kuala Lumpur ee dalkaasi Maleeshiya ayaa awood u leh in uu naaska nuujiyo dhasha inta ay ka maqan tahay shimbirta hooyada ahi. arrinkan oo yaab noqday sida ay muujiyeen warbixinno iyo daraasado laga sameeyey nolosha fidmeertu. waa xayawaanka naasleyda ah ee aan beedka dhalin ee haddana duula isaga oo aan la mid ahayn shimbiraha kale. fidmeerta dhadiga ahi waxay dhasheeda siin kartaa 350 mikrolitir oo caano ay ka jaqaan naaskeeda, halka labku siin karo 6 mikrolitir oo keliya oo ku filan inta hooyadu ka maqan tahay. sida lagu daabacay wargeyska faransiiska ee Science Avigon, arrimo noocan oo kale ah waxa kale oo ay ka jiraan dalal kale oo afrikaan ah oo ay warbixintu sheegayso in shimbiraha ku nooli ay la mid yihiin kuwa noocan oo kale ah. weli halka nagala socotaan waa raadiyo hargeysa codka jamhuuriyadda somalilan. dad badan ayaa la kulma qaniiniyada quraanjada meel kasta oo dunida ah, laakiin dadkaas waxay si dhaqso u dilaan quraanjada yar ee qaniintay, taasi oo ah khalad. dilka quraanjadu maaha arrin sax ah maadaama ay tahay noolo yar oo waxtar leh. haddii qofka ay qaniintay ogaan lahaa faa'iidada ay jidhkiisa u leedahay uu kana helayo wuu u mahadnaqi lahaa. faa'iidooyinka jidhka qofku ka helo qaniiniyada quraanjada waxaa ka mid ah iyadoo qaniinyadaas ay firfircooni geliso habdhiska wareegga dhiigga, waxaana kordha xinjirta
sonkorta ku jirta dhiigaga cas. qaniinyada quraanjadu waxay kobcisaa maskaxda waxayna awood siisaa unugyada dareenka maskaxda. waxa kale oo qaniinyada quraanjadu u wanaagsan tahay maqaarka sare oo iska difaaci kara bakteeriyada. qaniinyada quraanjadu waxa kale oo ay siisaa xididada dhiigga awood ay iskaga caabiyaan sunta, taasi oo iyana caawisa beerka. waxa kale oo la sheegay in marka ay qaniinto quraanjada dhadiga ay dhareerka carabkeedu ku hadho jidhkaaga, kaasi oo faa'iido badan u leh dhiigga wareega jidhka, waxaana uu gubaa oo baabi'iyaa dhammaan baruurta iyo duxda jidhka. haddii ay gacanta kaa qaniinto duxda ku jirta quraanjadu, boqolkiiba 95 way baabi'isaa, faa'iido badanna way u leedahay. weli halka nagala socotaan waa raadiyo Hargeysa codka Jamhuuriyadda Soomaaliland. iminkana waxa la soo gaaray xubintii gaarka ahayd ee barnaamijka. kooxdiimeedka lagu magacaabo Shinto ayaa la sheegay inay tahay tan go'aamisa dhammaan howlaha ay fulinayso dowladda Japan. kooxdan ayay xubno ka yihiin ra'iisul wasaaraha dalka iyo xubnaha golaha wasiirada. kooxdan ayaa tiradoodu gaaraysa 38,000 oo xubnood, waxaana ay aaminsan yihiin in dadka reer Japan ay ka sarreeyaan dhammaan dadka dunida kale, waxaana ay aasaasantay sanadadii 70-aadkii. waxa kale oo kooxdan ay aaminsantay wadaniyadda iyo boqortooyada amaradeeda oo la fuliyo oo ay lahaato haybad sare, laakiin waxay si weyn uga soo horjeedeen dastuurka dalkaasi oo ah mid la sameeyey dagaalkii labaad kadib, oo ah markii dagaalka lagaga adkaaday, iyagoo u arkay inuu duleeyey Japan. waxa kale oo ay aad u necab yihiin dadka ajaanibta ah. qoraaladooda waxay ku sheegaan halkudhigga ah dastuurkaygu xaq nama siiyo ee dalal kale ayuu nooga dhigay addoomo hoos jooga. fariintii loo diray tuuga iyo jawaabtii cajiibka ahayd. Amanda Nedham oo iibsatay baskiilad ay ku tagto shaqadeeda ayaa laga xaday iyadoo taayirkii hore iyo silsiladii ku xidhnayd keliya looga tegey. Amanda halkii ay booliska uga dacwoon lahayd murugadeeda waxay ku muujisay inay boodh ku dhajiso gurigeeda hortiisa, kaasi oo ay ku qortay ereyadan: fariintani waxay ku socotaa qofkii baskiilada iga xaday, iyadoo hadalkeedii boodhka ku sii qortay uu u dhignaa sidan: waxaan filayaa inaad iiga baahi badan tahay. waxaan soo iibsaday iyadoo duug ah, waxaana layga siiyey $200. waxaan doonayay inaan shaqada ku tago. baskiilad kale awood uma lihi inaan iibsado. marka dambe waxaad xaddaa baskiilad nooca tarmada ah ee qaaliga ah, waxaanad ka xaddaa qof hantiile ah, ama waa in aanad mar dambe waxba xadin weligaa. waxaan kaa codsanayaa in aad ii soo celiso baaskiilkaygii. Amanda ayaa sidaasi boodhkeeda ku qortay. ugu dambayn gurigeedii waxaa ku soo garaacay Stephen Sibowers oo ah ganacsade dhanka farshaxanka ah. waxa uu u soo bandhigay $200 inuu kaga iibsado boodhkii ay gacanteeda ku sawirtay, waana lacagtii ay markii hore ku bixisay baaskiilka. Amanda Nedham way ku qanacday oo way ka iibisay. weli halka nagala socotaan waa raadiyo Hargeysa codka Jamhuuriyadda Soomaaliland. iminkana waxa la soo gaaray xubintii gaarka ahayd ee barnaamijka. shirkadaha Japan ayaa shaqaalaha aan ka soo bixin shaqadiisa ku khasba inuu dalbado shaqo ka tegid. shirkadahan ayaa samaystay qolal ay ku magacaabaan maqsinka ciqaabta, waxaana qofka shaqaalaha lagu qasbaa inuu goob saqafka qolka ah uu qabsado, kadibna laga soo hoos qaado miiska uu ku taagan yahay isaga oo gacmihiisa ku haysta qoriga sare ee saqafka sare. qofka shaqaalaha ah ayaa marka uu muddo ku dhibaato codsada inuu shaqo ka tegidda doonayo oo laga daayo ciqaabta. kuwa ugu badan waxay ku qaadataa 10 saacadood. dadkan ayaa aad u neceb inay shaqada ka tagaan, iyadoo haddii shirkadu erido lagu soo oogo xuquuq badan maadaama aanay buuxsamin muddadii heshiiska shaqada. shirkadaha Japan oo ay u ogol yihiin qofka shaqaalaha ah inuu seexdo wakhtiga duhurkii si uu shaqadiisa isagoo xoog ah oo soo nastay dib ugu laabto maalinta gelinkeeda dambe, taasi oo keentay in qofku isagoo shaqada ku jira uu seexdo goobta shaqada iyadoon shirkaduna u arag wax dhibaato ah. waatay dhegeystayaal, iminkana waxa la soo gaaray guntii gabagabadii barnaamijka. intiin barnaamijkan mid lamid ah ku kulmayna waxaan diiga tegaynaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
يا با
gabay horta yaabal gabay horta yaabal gabay horta yaabal gabay hadduu jirase yaa gabay hadduu jirase yaa gabay hadduu jirase yaa gabay hadduu jirase yaa gabay